Bismillah. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay sixir bararka Somaliland maxaa saldhig u ah. Marka hore aynu isweydiino su-aasha ah, waa maxay sixir bararku? Sixir bararku waa marxaladda qiimaha ay maciishada badeecooyinka suuqa lagu gadanayo ama iibinayo kor u kacdo. Lacagta wadanka ee wax lagu iibsanayaan ay waxba goyn weydo ama qiimaha lagu iibsanayaa qaali garoobo. Haddaan si kale u dhigno, marka sixir bararka ama kor u kaca qiimaha la micneynayo waxaa lagu micneeyaa lacag badan oo eryanaysa alaab yar. Tusaale ahaan, haddii 5 sano ka hor uu 20 doolar goyn jiray isku joog dhammaystiran oo dhar ah, waxaa maanta laga yaabaa in lagu iibsado shaar ama surwaal. Inta badan sixir bararka marka dhaqaalaha laga hadlayo waxaa sal looga dhigaa aragtiyo aynu ka xusi doono: aragtida xaddiga lacagta quantity theory of money model, aragtida isku beddelka lacagaha currency exchange model, iyo aragtida wax soo saarka production model. Aragtiyahaasi waa kuwo sharaxaya meelaha uu ka iman karo sixir bararku. Haddaba, si in yar aynu u dul istaagno ama fahan kooban uga qaadano aragtida xaddiga lacagta ugu muhiimsan, waxaa xoogga saaraysa real economy oo ah alaabtii suuqa taallay isla markaana lagu dhufanayo qiimihii, taasoo kalifaysa in velocity of money ama wareegii lacagtu. Marka saddexdaas aynu ka duuleyno, waxay noqonaysaa lacagta la hayo ee suuqa wareegaysa waxay la mid tahay qiimaha oo lagu dhuftay alaabta iyo adeega wadanka yaala. Haddaba, markaynu aragtidan ka hadlayno, sixir bararku wuxuu ka yimaadaa lacagta uu dowladda bangiga dhexe mas-uuliga yahay uu wax ka bedel ku sameeyo lacagta wareegaysa suuqa. Example, macnaha tusaale, isagoo lacag cusub uu soo daabaco iyadoo aan alaabtii suuqana waxba iska bedelin. Taasi waxay dhalinaysaa sixir barar. Tusaale ahaan, haddii lacagta wadanka taalay tahay dhinaca kale, haddaba haddii qiimaha halkii kiilo ee suuqa ka joogto intii uu bangiga dhexe soo daabaco lacag cusub iyadoo alaabta suuqa aan waxba iska bedelin oo lacagtii hore suuqa ku jirtay ay ahayd inteedii, aan wax alaale iyo wax ku kordhay jirin, waxaa imanaysa in sixir barar dhaco. Qodobkan markaynu wadankeena ku eegno, waxaynu ognahay in baanka dhexe uu inta badan iska soo daabaco lacagta isaga oon u eegin waqti iyo suuq toona, halka aynu sidiisaba baankeenu qaban adeegyadii baanka dhexe loogu talagalay. Waxaanan odhan karnaa waa qodob qayb weyn ka ah dhibaatada sixir bararka. Talabaad ee keeni karta waxaa weeye iyadoo dhaqaalaha wadanku kor u kaco economic overheating, oo shaqada iyo wax soo saarka wadanku bato, dadka dakhligoodu kor u kaco, taasina sababto in baahidoodii wax iibsiga badato, demand waxa loo yaqaan. Markaas uu yimaado nooca sixir bararka ee loo yaqaan demand pull inflation. Noocan oo ay sal u tahay baahida wax iibsi ee dadku, maadaama dakhligu dadka kor u kacay ama uu batay. Marka aynu kanu eegno wadankeena, wax saameyn ah kuma laha, waayo wax ku sugan oo aynu kaga cabir qaadano wadankeenu ma laha. Arrinta saddexaad ee keeni karta sixir bararka waa marka ay qaaliyoobaan alaabta ay warshaduhu wax ku soo saarayaan, sida shidaalka, mushaharooyinka iyo wixii la mid ah. Taasina ay keento inay qaaliyeeyaan alaabta shirkaduhu, taasoo noqonaysa nooca sixir bararka loo yaqaano cost push inflation, oo ah in wax soo saarku la mid yahay shaqaalaha, qalabka dhulka iyo waxyaalaha la midka kale. Waxyaabahaasi asaaska u ah wax soo saarkuna waxay saldhig u ah kharashka. Arrinta Somaliland saameyn kuma laha, laakiin warshado sidaasi kama jiraan. Labadan qodob midna saameyn kuma yeelanayso Somaliland. Waxaase halkaasi noogu jira alaabta aynu dibadda soo iibsano oo ah waxa ugu badan ee aynu isticmaalno, taas oo aanay jirin cid ama dowlad si toos ah ula socota heerka wax isbedelayaan iyo heerka ganacsatada isla bedelayso. Ta afraad aynu xusi karnaa waxa weeyaan isku beddelka lacagaha. Tusaale ahaan, haddii lacagta wadanku hoos u dhacdo iyadoo sababtu tahay lacago cusub oo lasoo daabaco, taasina waxay sababi kartaa inay sameyso isku beddelkii lacagta Somaliland oo hoos u dhacda. Dhanka kale, oo doolarkiina sare u kaco, taas oo micnaheedu yahay in shilinka qiimihiisu lumo. Arrintani waxay sababtaa in baahida doolarka loo qabo ay badato oo ka sareyso lacagteena.
suuqa taalay, waxay keenaysaa lacagtii shilinka ahayd lagu wada doono dollar, taas oo saldhig u ah in dollarku kaco. Arrintan isbeddelka lacagaha oo wadankeenu siyaasad cad ka yeelan iyo baahida aynu dollarka u qabno inaynu wax ku iibsano, dabcan door ayay ku leeyihiin dhibaatada jirta. Ugu dambeyntii, dhowrka qodob ee aynu xusnay waa meelaha aasaaska ama saldhigga u ah sicir bararka. Sidaas oo ay tahay, dhowrkaas qodob waxaa intooda badan dhowrkan qodob aynu xusnay ugu muhiimsan. Haddaan horta in yar dib ugu noqono, intan oo qodob aan soo sheegnay midna dowladdu siyaasad cad kama laha. Dhowrka qodob aynu soo xusnay waxaa hagidooda iyo maamulidoodaba ay mas-uuliyad u tahay Baanka Dhexe, iyadoo ay jiraan siyaasado loo raaco oo lagu yareeyo aafada sicir barar. Ugu dambeyntii ama gabagabadii, si loo yareeyo khatarta baahsan ee sicir bararka, waxaa loo baahan yahay in dowladdu inay ka shaqaysiiso Baankii Dhexe, isla markaana la dejiyo dhowrkan arrimood ee hoos ku xusan. Lambar kow, siyaasadda lacagta waa in la hagaajiyaa oo dib loogu noqdaa dowladda dhankeeda oo loo yaqaano monetary policy, siyaasadda maaliyadda oo aynu u naqaano fiscal policy, iyo siyaasadda isku beddelka lacagaha exchange rate policy. Saddexdaa qodob marka aynu wax ka hagaajino, waxaa yaraanaya aafada sicir bararka ee dalkeena. Qeybtii koowaad ee aanu kaga hadlaynay sicir bararka iyo saameynta uu ku leeyahay dalkeena iyo meelaha uu saameynta kaga yeeshay lacagteena iyo waxyaalaha kalifay. Qeybteena labaad la soco, ha hilmaamin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi